waa dhul saxaro ah oo hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ah, marna gacanta ugu jirtay gumaysigii Talyaaniga, marna gacanta ugu jirtay nin keligii taliye ah oo la baxay magaca Kacaanka. Waa dal lagu aasay sir badan, hanti badan iyo dhiig badan. Waa dalka uu ka dhashay nin raba inuu dunida tuso inay jirto wadaniyad Afrikaan ah iyo mid Carab ah. Liibiya waxay xornimadeeda ka qaadatay Talyaaniga sanadkii 1951. waana mid ka mid ah dalalkii ugu horreeyay ee Afrika ka tirsan ee xorriyadda helay kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaa loo aqoonsaday boqortooyo dastuuri ah, waxaana madax ka ahaa boqor Idris Asanusi oo ka tirsanaa urur diimeed dhaqameed oo dad badan ay ixtiraami jireen. Laakiin xorriyaddii Liibiya ma aysan noqon midda dhabta ah ee ay ummaddu dareento. Sababtu ma ahayn keliya hoggaan la'aan, balse waxay ahayd nidaam siyaasadeed oo aan la jaanqaadi karin waqtiga iyo rabitaanka bulshada. Gudaha dalka waxaa jirtay boqortooyo qaab wanaagsan u dhisan, balse aan si toos ah ula falgeli karin shacabka, gaar ahaan dhalinyarada cusub ee waxbaratay. Xukunka boqortooyadu wuxuu ahaa mid u muuqda deganaan iyo sharciyad, balse ma ahayn mid u oggol shacabka inay ka mid noqdaan qayb ka mid ah go'aan gaarista siyaasadeed. Golaha wakiilada iyo hay-adaha dowladeed waxay u arkayeen hay-ado shaqadoodu tahay daboolidda cadaadiska caalamiga ah, balse aan lahayn wax raad toos ah oo nolosha shacabka ka muuqda. Dhalinyaradii ka qalin jabisay jaamacadaha Carabta, gaar ahaan kuwii wax ku bartay Masar, Suudaan iyo Liibiya, waxay dalka u arkayeen mid xiran, horumar la'aan ah, una baahan ruxitaan. Waxay ku fakarayeen halyeeyo sida Jamaal Abdinaasir oo ka hadlayay midnimada Carabta, halganka gumaysiga diriirka iyo sinaanta bulshada. Balse dalka Liibiya wuxuu ahaa mid u muuqda dal aan dagaal ku jirin, laakiin aan nabad lahayn. Liibiya waxay lahayd shidaal aad u fara badan oo ay sahmiyeen shirkado shisheeye kadib helitaankii madaxbannaanida. Laakiin shidaalkaasi uma noqon shacabka Liibiya il nololeed. Waxa uu noqday il dakhli oo u gaar ah boqortooyada iyo saaxiibadeeda shisheeyaha, waxaana laga dhaxlay cadaalad darro dhaqaale oo sii xumaysay kalsoonidii dadweynaha ee nidaamka jira xilligaas. Ka hor 1969, Liibiya waxay lahayd jiil cusub oo aad u xamaasad badan, aqoon leh, laakiin niyad jabsan. Waxay fahmeen in xorriyaddu aysan ku fillayn in lagu farxo haddii aysan jirin hannaan cadaalad ah oo si siman u qaybsha hantida, u abuuraya fursado, kana difaacaya danaha shisheeye. Afkaartii Pan-Arabismka, hanti wadaagga Carabta, xornimada Afrika iyo midnimada Carabta ayaa saameyn weyn ku yeeshay garaadka dhalinyarada. Waxa ay bilaabeen inay midoobaan oo ay samaystaan hal mabda' oo gaashaan iyo horumar u noqda dalkooda iyo guud ahaan dadka Carbeed. Waxay samaysteen ciidamo dhalinyaro ah, kuwaas oo qayb ka mid ah uu hogaaminayo Muammar al-Qaddafi, ninka ay sheekadeena ku socoto maanta. Waxayna doonayeen inay sameeyaan afgembi siyaasadeed si ay dalkooda uga saaraan waxay ugu yeereen boqortooyo gabowday oo danta dadka ka fog. Kooxda uu Qaddafi hogaaminayo waxay ahaayeen kuwa aan xukun doon ahayn, balse waxay ahaayeen ciidan aragti leh, lehna tababar sare iyo waxbarasho jaamacadeed. Qaddafi oo ahaa hoggaanka kooxdaas wuxuu ka mid ahaa dhalinyaro aad u danaynaysay fikirka kacaanka Carabta, isxukunka shacabka, iyo inay ka hor yimaadaan faragelinta reer galbeedka ee dalalka muslimiinta.
Gaddafi waxa uu ahaa nin reer miya wuxuu ku barbaaray duruufo adag taasoo u sahashay inuu si dhow u fahmo baahida qofka saboolka ah iyo niyad-jabka uu la nool yahay muwaadinka caadiga ah. Markii uu galay ciidamada qalabka sida, wuxuu halkaas ku bartay hogaaminta, qorshaynta, iyo in la isla wadaago aragti si loo abuuro dhaqdhaqaaq. Wuxuu bilaabay inuu akhriyo buugaag siyaasadeed, buugaag diin iyo falsafad isugu jira, iyo khudbadihii hogaamiyaashii xilligaas sida Jamal Abdel Nasser, Mao Zedong, iyo xitaa mabaadi'da hanti-wadaagga ee socialismka. Had such a stranglehold of fear over the country. But unlike Egypt and Tunisia, which were largely peaceful protests, Gaddafi wouldn't back down and soon began killing his own people. Saqdii dhexe ee habeenkii Sebtembar 1969 wuxuu ahaa mid taariikhi ah oo bedelay jihada Liibiya iyo guud ahaan siyaasadda Afrika. Muammar al-Gaddafi oo markaas ahaa askari dhalinyaro ah ayaa hogaaminayay kacdoon qarsoodi ah oo dhaliyay in boqortooyadii Maxamed Idris Sanusi meesha laga saaro, lana dhiso nidaam jamhuuri ah oo ka duwan kuwii hore. Madaxweyne Maxamed Idris waxa uu safar caafimaad iyo dalxiis ugu maqnaa dalka Turkiga, taasina waxay fursad u noqotay Gaddafi iyo saaxiibadiisa si ay talada dalka Afgembi ugu qabsadaan. يدرك تماما ان قاعدته باتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي، ونحن ندرك ايضا Hogaamiye Gaddafi waxa uu fahamsanaa in isbeddel dhab ah uu u baahan yahay qorshe cad iyo awood midaysan. Sidaas darteed wuxuu la baxay koox dhalinyaro ah oo ciidamada ka tirsan, kuwaas oo wata aragti isku mid ah, kuna howlan sidii ay talada dalka ugu qabsan lahaayeen habeenkaas muhiimka ah. Habeenkaas, tallaabo kasta waxay ahayd mid isku xiran oo xigmad ku dhisan. Waxa ugu horreeyay in kooxdu ay si qarsoodi ah isu abaabushay, ayna bartilmaameedsadeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo ciidamada, sida saldhigyada militariga iyo warbaahinta, si ay u joojiyaan awoodda boqortooyada ee xiriirka bulshada iyo ciidanka. Tani waxay u suurtagelisay inay go'aan qaadasho degdeg ah ku sameeyaan xaaladda dalka iyagoo aan helin caqabado waaweyn. Intii ay fulinayeen qabashada xarumaha, waxay soo qabteen saraakiisha muhiimka ah iyo kuwa wax ku oolka u ahaa boqortooyada, iyagoo si cad u xakameeyey awooddii siyaasadeed iyo militari ee jidgooye kasta laga filan karay. Tani waxay ka hortagtay in nidaamkii hore uu iska celiyo kacdoonka, isla markaana waxay xoojisay kalsoonida kooxdu ay ku qabtay inay beddelaan mustaqbalka Liibiya. Markii kacdoonka si guul leh u dhacay, Gaddafi iyo asxaabtiisu waxay si degdeg ah ugu dhawaaqeen dhammaadka boqortooyada iyo dhismaha nidaamka cusub ee jamhuuriyadda, taasoo ku dhisan fikrado ka duwan kuwii hore oo diiradda saaraya dadka iyo ka qaybgalka tooska ah ee bulshada. Habeenkii qabsashada talada wuxuu u noqday bilow bog cusub Liibiya, kaasoo keenay isbeddelo siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale oo dalka ka dhacay. Inkasta oo uu la socday caqabado iyo muran muddo dheer, waxaa muhiim ah in la fahmo in qorshaha, geesinimada dhalinyarada, iyo maqnaanshiyaha hogaamiyihii hore ay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee suuro geliyey kacdoonka taariikhiga ah. Markii loo sheegay madaxweyne Maxamed Idris in dalka Afgembi lagula wareegay, boqorku waxa uu isku dayay inuu abaabulo jawaab ciidan oo uu ku soo celiyo xukunkiisa, balse dadaalladiisa waxay noqdeen kuwo aan miro dhalin, sababta oo ah kooxda kacaanka waxa ay hore u xakamaysay meelaha muhiimka ah ee dalka. Intaa kadib, boqor Idris waxa uu go'aansaday inuusan dib ugu soo laaban dalka Liibiya, isagoo ugu horreyn u ambabaxay Turkiga, kadib Masar, halkaasoo uu ku noolaa ilaa geeridiisii 1983.
markii Muammar Gaddafi uu awoodda dalka Liibiya la wareegay 1 Sebteembar 1969 waxaa bilowday weji cusub oo dalku u gudbay. Afkaarta nidaamka kacaanka ku dhisan ayuu ka hirgeliyay dalka Liibiya. Waxa uu ku hagayay dhinacyada bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadaba. Gaddafi waxa uu doonayay inuu baabi'iyo nidaamkii boqortooyada oo uu ku tilmaamay mid ku dhisan cadaalad darro iyo inay dad gaar ahi hantida guud xukumaan, halka dadka intiisa kale aysan lahayn meel ay ka armiyaan. Maalmihii ugu horreeyay ee kacaankiisa, Gaddafi waxa uu baabi'iyay dastuurkii boqortooyada. Waxa uu xiray safaarado badan oo reer galbeed ah, gaar ahaan kuwa Britain iyo Mareykanka. Wuxuuna xayiray saldhigyo ciidan oo ay dalalkaas ku lahaayeen gudaha dalka Liibiya. Waxa uu u arkayay inay yihiin astaan gumaysi oo dul saaran madax-bannaanida dadka reer Liibiya. Waxaa sidoo kale la baabi'iyay saldhiggii weynaa ee Mareykanka ee Wallis Air Base, taasoo Afrika, Carabta iyo duniduba ay il gaar ah ku hayeen. Isbeddelkiisu wuxuu ahaa mid aan ku koobnayn xuduudaha Liibiya. Gaddafi wuxuu isu arkayay inuu yahay hage qaran iyo mid qaramada kale ee Afrikaanka ahba. Waxaa la furay barnaamijyo lagu taageerayo halgamayaal Afrikaan ah sida Nelson Mandela oo uu si weyn u garab istaagay intii uu ku jiray xabsiga, iyo ururo kale oo go'nimo doon ah sida ANC ee Koonfur Afrika ama MPLA ee Angola. The attempted coup d'etats grew during the 1980s. The most spectacular domestic efforts to unseat Muammar gudaha dalka. Gaddafi wuxuu la yimid afkaar cusub oo ugu sheegay buuggii cagaarnaa Green Book oo uu ku qoray aragtidiisa ku saabsan sida dadku isu maamuli karaan iyaga oo aan lahayn barlamaan, xisbiyo siyaasadeed ama nidaamyo doorasho oo reer galbeed ah. Wuxuu ku dooday in dadku ay si toos ah uga arrimiyaan dalkooda iyagoo adeegsanaya shirar dadweyne iyo guddi hoosaadyo. Dhanka dhaqaalaha, waxa uu bilaabay in uu hantida qaranka kala soo noqdo gacmaha shakhsiyaadka iyo shirkadaha reer galbeedka. Saliiddii dalka oo ahayd tan ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dhaqaajisay, waxa uu qandaraasyo cusub la galay shirkado, isagoo ku adkeeyay shuruudo cusub oo ay dowladdu u badan tahay. Dakhliga ka soo baxa saliidda waxa uu si toos ah ugu celinayay shacabka, isagoo ku dhisaya guryo, goobo waxbarasho, caafimaad iyo xitaa jeeg lacageed oo ay qaataan qoysaska qaar. Laakiin isbeddelkaas waxa uu lahaa dhadhan laba weji leh. Inkasta oo ay jireen guulo muuqda oo dhanka horumarka ah, haddana waxaa si tartiib u soo ifbaxay kelitalisnimo, caburinta xorriyadda hadalka, iyo kororka awoodda sirdoonka dalka. Qof kasta oo ka fikir duwanaa Gaddafi waxa uu wajahaa xabsi ama dil qarsoon. Dadka qaar waxa ay sheegaan in nidaamkii uu dhisay uu ahaa mid halis ku ah xorriyadda insaanka, inkasta oo uu dalka xagga adeegyada aasaasiga ah horumar ballaaran ka sameeyey. Dhinaca kale, isla maalintii xigtay ayuu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka bilaabay olole lagu beddelayay sumcadda Liibiya, loogana dhigayo mid Afrikaan ah, Carab ah, Islaam ah, isla markaana xor ah. Afrika gudaheeda, Gaddafi wuxuu isu arkayay nin halgamaa ah oo leh waajibaad ka ballaaran Liibiya. Wuxuu bilaabay inuu maalgeliyo dhaqdhaqaaqyo xorriyadeed oo ka socday Koonfur Afrika, Angola, Mozambique, Eritrea iyo xitaa Falastiin. Taageeradiisa kuma ekayn hadal iyo duco, wuxuu siin jiray dhaqdhaqaaqyadaas lacag, hub iyo tababar ciidan. Wuxuu lahaa riyo ah in Afrika ay yeelato hal madaxweyne, hal calan, hal ciidan iyo hal baasaboor. Sanadihii 1980 ilaa 1990, Gaddafi wuxuu noqday wejiga ugu buuqa badan ee hogaamiyaasha Afrika.
waxaa mar laga sheegay koonfur Afrika isagoo kulan la leh Mandela. marna waxaa lagu arkayay Mali isagoo kula hadlayay Midowga Afrika. marna waxaa laga maqlayay Darfur isagoo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo. laakiin dadaal kasta oo uu sameeyay Gaddafi, Afrikaantu waa ay jeclaadeen. sababta keentay in Afrika ugu dambeyntii ay jeclaadaan Gaddafina waxay ahayd taageeradii uu siiyey fikradda ah Afrikaan baa iska leh. wuxuu ku celcelin jiray in Afrika ay leedahay khayraadkeeda, dadkeeda iyo maskaxdeeda, isla markaana aysan u baahnayn gacan shisheeye. inta uu xilka hayay, wuxuu taageero muuqda siiyey dhismaha Midowga Afrika ee beddelay ururka OAU. wuxuu xitaa bixin jiray qarashaadka shirarka qaar ka mid ah. wuxuuna dhiirigeliyey isku xirnaanta dalalka Afrika ee dhinaca dhaqaalaha, amniga iyo waxbarashada. mararka qaar, madaxda Afrika qaar ka mid ah kama aysan helin siyaasaddiisa xamaasadda leh, laakiin weligood kama fogaan karin xooggiisa dhaqaale iyo rabitaankiisa siyaasadeed. wuxuu Liibiya ka dhigay saldhigay Afrika ka rajayso gargaar dhaqaale iyo marin siyaasadeed oo ka madax bannaan reer galbeedka. dalal badan sida Chad, Niger, Mali, Suudaan iyo Uganda waxay si toos ah u heleen taageero militari ama dhaqaale oo ka timid Gaddafi. hase yeeshee, taasi waxay la timid cadaawad laga qaaday gudaha iyo dibadda. reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Ingiriiska waxay u arkayeen Gaddafi inuu yahay khatar aan la saadaalin karin. wuxuu lahaa af aan cabsan markii uu hadlayo. marka la jecla Bush iyo xertiisa, wuxuu lahaa dhaqan diidaya dabaqadaha quman iyo kuwa loo yaqaano diplomatic censorship. halkaasna waxaa ka bilaabatay qorshayaal badan oo loogu hanjabayo, lagu cunaqabataynayo, ugu dambeynna lagu ridayo. As a result, the United States and the United Nations Security Council Gaddafi wuu jeclaa inuu noqdo boqorka boqorada Afrika. mararka qaar wuxuu xidhan jiray dhar dhaqameed Afrikaan ah, isagoo si ula kac ah ugu dhowaanaya dadweynaha caadiga ah ee Afrika. saamaynta Gaddafi ee Afrika kuma koobnayn keliya taageero dhaqaale ama hub. wuxuu abuuray dood aan hore looga hadlin qaaradda. dood ku saabsan madax bannaanida dhabta ah ee Afrika. in Afrika aysan noqonin suuqa qashinka lagu shubo. in dadka Afrikaanka ahi ay yihiin kuwa mudan inay aayahooda qabsadaan. inkasta oo aan si buuxda loo hirgelin riyadii Afrika midaysan, haddana xasuustiisa weli waxay ku jirtaa qulubta dadka qaar. Gaddafi isagu wuxuu rumaysnaa in waxa uu samaynayo ay yihiin kuwa sax ah. wuxuu sheegay in caalamka uu ka badbaadinayo nidaam musuqmaasuq oo ay reer galbeed ku rabaan inay ka hirgeliyaan. marka aad eegto dhabaha uu qaaday, waxaad arkaysaa inuu ahaa nin ku dhashay saxaraha baadiyaha Liibiya oo laga yaabo inuusan arag magaalo weyn markii uu yaraa, balse markii uu koray uu dareemay in dalkiisu u baahan yahay isbeddel taariikhi ah oo isagu hoggaan u yahay. wuxuu isku arkay sidii nebi siyaasi ah, hage taariikhi ah oo cid kale aysan ka doonaynin inuu masraxa ka dego. arrintaas ayaa ahayd midda ugu dambayn dhabaha u xirtay keligii talisnimo iyo burburkii dambe ee dalkiisa ku habsaday. No demonstration at all in the streets. Here's why this matters to us. After months on the run, Muammar Gaddafi is dead. Guga Carabta ayaa ka bilaabmay waddanka Tunisia, halkaas oo nin yar oo ganacsado ah isku gubay. masiibadaas yar waxay kicisay bulsho dhan oo dareemay dulmi, cadaalad darro iyo dhaqaale xumo soo jireen ah. rabshado ayaa bilaabmay, mudaharaadyo ayaa dhacay. dowladdii Tunisia way dhacday markaa. dadkii kacaankuna wuxuu si dhaqso leh ugu faafay Masar, Yemen, Syria
iyo Liibiya. Dozens were killed and injured, and this became known as the Jasmine. Liibiya waxay ahayd waddan xasiloon oo amni uu ka jiro, balse gudaha ka cadlaysan. madaxweynaha muddada dheer Muammar al-Gaddafi wuxuu xukunka hayay tan iyo 1969 markaas oo afgembi kula wareegay taladii boqor Idris. bishii Febraayo 2011 kacdoonku wuxuu si tartiib ah uga bilaabmay wadamo kale. Liibiya wuxuu uga qarxay si kulul. mudaharaadyadii ugu horreeyay waxay ka dhaceen Benghazi, magaalada labaad ee ugu weyn dalka, halkaas oo dadku isugu soo baxeen iyagoo dalbanaya isbeddel siyaasadeed, xorriyad, hortag dilal iyo xisbiyo aan maxkamad lahayn. balse Gaddafi ciidankiisu uma aysan falcelin sidii madaxweyne dimuqraadi ah. waxay bilaabeen in rasaas nool lagu furo dadka dibadbaxa sameynaya. Gaddafi waxa uu qaatay go'aan dagaal. waxay saahay inuu qaato dagaal labadeed. sheekada kacdoonka Liibiya uma uusan ekaan sidii kuwa kale ee Carabta. halkan dadku waxa ay galeen dagaal sokeeye oo xukuumadda Gaddafi dhinac ka ahayd, dadka kacdoonka wata dhinac kale. waxaa lagu dhex diriray magaalooyin, saldhigyo militari iyo meel istiraatiiji ah. ma jirin qorshe Gaddafi oo kursiga uga degayo. wuxuu si dadban uga hanjabay inuu dalka gubi doono inta uu ka tegayo. wuxuu sameeyay hadallo huwan kibir iyo dhigasho. wuxuu dadka ku tilmaamay inay yihiin dooliyaal iyo daroogo cunayaal. dagaalka sokeeye wuxuu ahaa mid ku sii faafay gudaha dalka Liibiya. dambiyada uu maamulka Gaddafi ku kacayna aad ay u badnaayeen, waxayna keeneen in qaramada midoobay ay ogolaato in la farageliyo duqeymo cirka ahna lagu fuliyo si loo ilaaliyo dadka rayidka ah. waxaa howlgalkan hogaaminayo NATO oo weerar ku qaaday saldhigyada ciidan ee Gaddafi, madaxtooyadiisa iyo kaydka hubka. si tartiib ah ayay kacdoon wadayaashii u qabsadeen magaalooyin. bishii Oktoobar 2011 Gaddafi wuxuu ka baxay caasimadda Liibiya ee Tripoli isagoo u cararay magaalada Sirta, magaaladii uu ku dhashay. halkaas ayuu ku dhuumanayay iyadoo mucaaradku ay ku hareereysnaayeen magaalada. maalin cad oo ku beegan 20 Oktoobar 2011 kolonyo uu la socday ayaa la beegsaday. diyaaradaha NATO ayaa duqeeyay baabuurta. Gaddafi oo dhaawac ah ayaa ku dhuuntay god yar oo biyo mareen ah, laakiin taasi ma aysan ka badbaadin. dhalinyaro mucaarad ah ayaa gacanta ku dhigtay. si fool xun ayaa Gaddafi halkaas loogu dilay. waxaa la dilay isagoo afka laga dilayo, jirka laga tooganayo, laguna jiidayo wadooyinka si adduunyadu u daawato. In the NATO strike was shot by one of his own guards. Another says he bled. 42 sano ayuu xukumayay dalka Liibiya. wuxuu dhisay nidaam isagoo u gaar ah, lagana waayay dunida. halka uu dadka uga muuqan jiray hogaamiye adag. dhankiisa kale wuxuu ahaa nin sir badan, akhriska jeclaa, dhisaya Afrika midaysan, balse ka cabsi qabay inuu lumiyo talada dalka. geeridiisa kadib Liibiya ma aysan helin xasilooni. qabiilooyin, kooxo hubaysan iyo dowlado shisheeye ayaa kala jiitay dalka. Gaddafi waxa uu ahaa nin xukun adag, laakiin geeridiisu waxay noqotay cashir weyn, kaasoo ah in xukunka lagu dheganaado inay horseedi karto burbur aan laga kabsan karin. dadka haddii la caburiyo muddo dheer, markii ay helaan fursad way ka faa'iideystaan fursaddaas wayna qarxaan. laakiin haddii aysan jirin hanaan sax ah oo lagu bedelo nidaamkii hore, kacdoonka ayaa wax walba qasaya.